السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan warbixintan maalinlaha ahayd ee aalaaba xilligan oo kale aan idin kula wadaagi jirnay guud ahaan dhacdooyinkii 24 saac ee la soo dhaafay iyo waxa qorshuhu uu yahay in maalinimada maanta uu ka dhaco dalka iyo dibadda intii aan sii odroosi karno 24 saac la soo dhaafay kulamo waaweyn ayaa waxay ka dhaceen magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoona kulamadaasi inta badanba ay qabanayeen معارض كسو هرجيدا مدحوينها جمهورية مدن حسن شيخ محمود تاسي oo walaac iyo concern ay kaga muujinayeen xilliga kala guurka ee dalku uu galay doorashooyinka dowladda federaalka xilligan ay qorsheynayso inay ka qabato qaybo kamida dalka iyo sidoo kale dastuurkii ay dhawaan meel marisay dowladda iyadoona walaaca ugu badan arrimahaasi ay ahayn iyo gaar ahaan muddo kororsi ay qaadato dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud رئيس الوزراء جمهورية مدن حمزة عبد برا أيا وحده رشال اللين كل يجي استقوا سبريرة وشاقي إن دولة دي سعر يطول مال كستور الآدو هدي الآدو دستور كلا بكون لبيه طبعا هدي للجوجة دستور كان هذا يوعي مال مريان إلا بكون لحية لباتن لبضبة مدول بأي شرعي أهان وهايستان هل سنة أو ديرادا سكال هدي أنو لجنو مدحرات كودو إن يهي مدشان سنة taasi oo ka dhigan in hal sano oo muddo kororsi ah oo kii horay uu sheegay gudoomiye aadan madoobe ay qaadatay dowladda xilligan uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadalhaynta ugu badneed ee mucaaradka ee maalmihii shalay ku horeysay ayaa waxay ahayd dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay doonaysaa muddo kororsi laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa shalay banaanka keenay isagoo sheegay in mucaaradku aysan ka warhaynin dastuurka 2012 wixii ku qoran oo hadii tooda loo raacana 5 sano oo muddo xileed ay haystaan hal sano u dhiban yahay hadii koodan la qaatana muddo xileedkeedu uu 5 sano yahay oo hal sano uu dhiban yahay taasi oo walaac xoogan si abuurtay sidoo kale waxa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kulamo waaweyn oo looga soo horjeeday dowladda federaalka mucaaradka beelaha hawiye ayaa waxa ay qorsheeyeen inta ka horeysa jumcaha dhammaan isbuucan in qaybaha kala duwan ee bulshada laf dhabarta waa in maalinba ay qayb la kulmaan iyadoona hawshaasi kulamada qorshuhu uu yahay inay soo gabagabeeyaan maalinimada jumcada hadii uu eebaydmo shar u dambeysay waxay la kulmeen culimada Soomaaliyeed iyadoona xalay Muqdisho ay kula kulmeen siyaasiyiin ay kula kulmeen magaalada Muqdisho xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ku matala aqalka sare iyo golaha shacabka beelaha hawiye sidoo kale maanta iyo bari dambe saddex maalmoodna kulamo kale oo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa jira oo mucaaradka hawiye ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada isla yihiin laf dhabar oo yihiin iyagoo la wadaagaya concernka ay qabaan sida xaalku yahay iyo wixii xal la aha sidoo kale kulamo iska soo horjeeda ayaa waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho dhanka dowladda iyo dhanka mucaaradka villa Soomaaliya xalay waxa ka dhacay kulan muhiim ah oo u dhaxeeyay xubnaha xisbiga JSB iyadoona go'aano waaweyn sida xogo hoos oo telefishinka TTN uu heliyay ay sheegayaan ay ka soo baxeen waxa kamid ah in xisbiga JSB loolankii loogu xusul duubay ee dhanka maamulka galmudug la isku raacay sida warar hoose oo aan helin ay sheegayaan in la siiyo siyaasi liibaan shuluq oo kamid ah musharaxiintii u tartamay ama u taagnaa xilka maamulka galmudug waa markii dhanka JSB loo eego sidoo kale hirshabeelle madaxweyne cali guudlaaw xuseen ayaa mar kale JSB isku raaceen sida warar hoose oo aan helay sheegayaan in loogu sharaxo oo uu noqdo musharaxa xisbiga JSB ee maamulka hirshabeelle qodobadaas ayaa waxay ahayn kuwa aad u waaweyn oo musharaxiin badan ayaa garab ordayay labadaasi maamul kuwaasi oo intooda badan lagu wada inay hadda wixii ka dambeeyay iska xaadiriyaan madasha mucaaradka maadaama oo villa Soomaaliya gaar ahaan JSB ay go'aansatay inay shakhsiyaad gaar ah ay u qoondeyso waxaan horay ula soconaa in koonfur galbeed gudoomiyihii golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe horay JSB ay u go'aansatay inay u sharaxdo hadii aan eegno dhanka koonfur galbeed oo qalalaasyo xoogan uu ka taagan yahay sida wararku ay sheegayaan waxaa jiray maalmahan warar sheegayay in ciidan ka tirsanaa ciidamadii maamulka koonfur galbeed ee xilligii lafta gareen ay gadoodeen iyadoona ciidan ku dhawaad 2,000 aan horay u ogeyn inay awdiinle oo deegaanka lafta gareen ay horay u tageen kuwaasi oo markii lafta gareen laga bixiyay baydhabo halkaasi tagay waan iyo dadaal dheer oo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo farageliyay
waxay ugu dambaysi ku soo dhamaatay in ciidamadii iyo hubkoodii lagu soo celiyo magaalada Baydhabo balse mar kale ayay saansaan kale qaraxday ciidamo la sheegay inay ahaan ku taabaxsan lafta garan ayaa waxay ugu laabteen awdiinle kuwaas oo isku aruursan halkaasi qaybo kamid ah shalay waxaan baahinay inay sheegeen in doorasho aysan ka dhici karin koonfur galbeed in ciidamadaasi ay sheegeen wararkii hadda ugu dambeeyay ee aan xalay ka helay deegaanka awdiinle ayaa waxa ay sheegayaan in shalay galab magaalada deegaanka awdiinle ay ka baxeen ciidan sheegtay inay yihiin ciidanka xaquudirirka ah oo uu hogaaminayo sargaal lagu magacaabo Xasan Xiirey kuwaas oo gaaray Yurkud sidoo kale isla deegaanka awdiinle waxaa sidoo kale xalay ka baxay sida warar hoose oo aan helay ay sheegayaan ciidamo iyagana kale oo uu hogaaminayo generaal lagu magacaabo Amiin iyo sidoo kale taliya Maadey kuwaasi oo xilligan la sheegay in ay joogaan meel banaanka ka ah deegaanka Bardaale waxa labada intaasi kadib ka daba baxay sida warar hoose oo aan helay ay sheegayaan ciidan wata 15 gaadiidka dagaalka aha kuwaasi oo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii koonfur galbeed ee dhanka dawladda hadda u wareegay qayb kamid ah waxa laga cabsi qabaa in dagaalo ama isku hor imaadiyo inay ka dhacaan Yurkud iyo deegaanada kale ciidamadan ay u baxeen arrimahaas ayaa waxay kamid ahayn kuwa ugu waaweynaa ee dhankaasi maamulka koonfur galbeed iyadoo hadii aan dib idin celiyo JSB uu Hirshabelle koonfur galbeed iyo galmudug mid walba musharaxiin gaar uu calaamadeeyay koonfur galbeed waxaan ogaan aadan madoobe Hirshabellena siyaasi Liibaan Shuluq aan dhahay cali guudlaaw xuseen madaxweynaha hore galmudugna siyaasi Liibaan Shuluq hadii aan dhanka bariga dhexe aadno Iiraan xalay dowladda xoogan ayay sameeyso ay ku soo bandhigtay magaalada caasimadda Tahraan gantaal lagu magacaabo qadri kaasi oo la sheegay inuu yahay kuwa ridada dhexe iyadoona Iiraan mar kale ay soo diyaarinayso dagaal ay la gasho reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Israa'iil kadib markii waanwaanti la ismari waayay inkastoo hadda aan lagu kala tagin ilaa ay jumcaha waanwaantu ay dhanka Pakistan ka furan tahay hadaan soo gabagabayno Donald Trump ayaa saacado ka hor waxa uu ku daabacay bartiisa True Social lagu magacaabo uu isticmaalo xiriirka bulshada waxa uu yiri Iiraan ilaa oo gacanka Hormuz talaabo military laga qaado dayn mayso xayiraada iyo qodoqodaynta ama talaabooyinka ay naga garab wado waxa uu sheegay Iiraan inaysan marna diyaar u ahayn in ay gacanka Hormuz xirto taasi wuxuu ku sababeeyay Iiraan bardhay ama maalin kasta $5 million ayaa waxay ka qaadaa maraakiibta maraysa gacanka Hormuz marka wuxuu yiri hadii ay xirto 5 milyan ayaa baaqanaysa marka inay 5 milyan ka baaqato mar rabto waxay rabtaa inay 5 milyan ee baada waa sidoo hadalka u dhigay ay ka sii qaado gacanka Hormuz marka wuxuu sheegay Iiraan marna inaysan qorshaha ugu jirin gacanka Hormuz in la xiro 5 milyan ee baada ayaa rabtaa inay sii qaadato 5 milyan ee baadana wuxuu yiri inaan soo gabagabayno ayaan ka shaqeynaa oo talaabo military laga qaado taasi oo hadii uu sida Donald Trump uu sheegay ay kaga dhameeyeen xaaladaasi xumeyn kartaa telefishinka TTR oo idin leh arooriya sugan insha Allah